wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa ku waramaya in sacadihii ugu dambeeyay ciidamada mamulka buntland oo garabsanaya kuwa xasilinta magaalada Galkacyo holgal ay ka sameeyeen waqooyiga magaalada Galkacyo. Holgalkan ayaa yimid kadib markii haweenkii xalay ahaa bam gacmeedku waxa hubaysan ay ku tuureen askar ka tirsan booliska buntland oo holgalka waday waqooyiga magaalada Galkacyo. Ilaa iyo hadda saraakiisha hogaaminaysa holgalka ayaa waxa ay sheegeen ilaa iyo 3 ruux in gacanta ay ku soo dhigeen, sidoo kalena ay sii wadi doonaan holgalka lagu raadinayo dadkii xalay ka dambeeyay weerarkii ka dhacay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. hal qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday 2 askari oo ka tirsan booliska buntland oo ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar bam ah kooxo hubaysan xalay ay ku qaadeen askar ka tirsan booliska buntland oo holgal ku jiray. muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca ka armiyo buntland waxaa ka dhacay dilo qorsheysan iyo qaraxyo kuwaasi inta badan mas'uuliyadooda ay sheegtaan xarakada al-shabaab. deegaanada buntland kaga armiyo Galkacyo ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay laga soo warinayay in ay ku soo badatay faralka amni darro, isla markaana maamulka buntland uu sheegay in ay sii wadi doonaan holgalka lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. sidoo kale waqooyiga magaalada Galkacyo ayaa muddooyinkii dambe waxaa caadi ku noqday kooxaha hubaysan oo dhac u geysanaya shacabka isaga kala goosha xaafadaha Israaciil garsoor ee magaalada Galkacyo, waxaana saraakiisha ay sheegeen in ay gacanta ay ku soo dhigi doonaan cid waliba oo lagu hela in ay ku lug leeyihiin weerarada ka dhacaya magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. saraakiishan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay 3 ruux ay soo qabteen, sidoo kalena ay ku raad joogaan shakhsiyaad kale oo lagu tuhumayo inay ka dambeeyeen weerarkaasi oo ku dhumaalaysanaya Galkacyo. magaalada Galkacyo guud ahaan waxaa xilliyada qaarkood ka dhacay dilalka qorsheysan iyo qaraxyada kuwaasi oo mas'uuliyadooduna ay sheegtaan xarakada al-shabaab. maamulada galmudug iyo buntland oo ka wada armiya Galkacyo ayaa dhawaan kulan ay yeesheen waxa ay sheegeen in ay iska kaashan doonaan howlgalka sugidda amniga magaalada Galkacyo iyo ka hortagga wax walba oo qalalaasi keeni kara. buntland iyo galmudug ayaa horey waxay ugu heshiiyeen in qof waliba qaladad oo ka galo dhanka kale ay gacanta ay ku soo dhigaan. isku soo wada duubo howlgalkii xalay ilaa iyo maanta soconaya magaalada Galkacyo ayaa waxaa lagu soo qabtay ilaa iyo 3 ruux oo lagu tuhumayo inay ka dambeeyeen weerarkii bam oo xalay ka dhacay magaalada Galkacyo. dad ku sugan Galkacyo aan la hadalnay ayaa waxa ay noo sheegeen in haweenadii ugu dambeeyay xaafado qaar oo ka tirsan waqooyiga magaalada Galkacyo xilliga habeenkii banaanka loo bixi karin kadib markii ay sheegeen in kooxo hubaysan ay jidka ay u joogaan, isla markaana dil iyo dhaawac ka geysanaya. maamulka buntland ayaa horey wacd ugu maray in ay soo qaban doonaan cid waliba oo ku lug leh falalka amni darro ee ka dhacay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. Ismaaciil Abukar, Bulshada Kasmaal TV, Muqdisho.